Example of simple English sentences. Example of a simple English sentences. Simple example of a simple present tense sentences. The river flows through the city. The river flows through the city. The snow covers the ground in the winter. You drink coffee in the morning every day. She cooks dinner for her family. She writes in her journal every day. He paints his house. He paints his house beautifully. He paints his house beautifully. She writes in her journal every day. He paints his house beautifully. We travel by bus to work. You swim in the river during the day. I fed the birds in the park. He brushes his teeth before the breakfast. The birds usually fly in the morning and afternoon. He plants trees in the backyard of the house. The sun gives us light and warmth every day. He listens to Quranic on his headphones. She uses computer at workplace. He reads the newspaper every day. He used to read newspaper every day. He reads newspaper every day. He watches his favorite football every day. I like to watch movies. I work at a restaurant in the morning. I work at a restaurant in the morning. He lifts his weight at the gym. He lifts weights at the gym. مرة كنا noqono noof Soomaali ka turjubayna insha Allah. Simple example of a simple tense sentences. Example tusaale of a simple sentences. dhacdooyinka fudud ee Englishka. Simple present dhacdooyinka fudud waa waxa maalin walba dhaca insha Allah. waa kala saari doonaa dhacdooyinkaas inta u kala baxaan. Simple present tense waxa weeye dhacdada maalin walba dhacda ee soo noqnoqota ee maalinlaha ah. Sentences waayo example waxaan dhahnay waa tusaale of a simple present ee dhacdada maalin walba soo noqnoqota. ereyada maalin walba aad isticmaasho ama ficilada aad maalin walba samayso
in sentences jilmo ahaan kolkii loo dhigo. The river webigu, river waa webi. The river webigu flows waa socdaa. Biyaha webigu maalin walba waa qulqulaan through the city. Caasimadda ayay dhex maraan. Biyaha webigu way qulqulaan maalin walba way qulqulaan caasimaddana way dhex maraan. Waa garanay. The snow, snow waa baraf. Cover wuxuu qariyaa mar walbuu qariyaa the ground dhulka in the winter xagaaga. Dabcan mostly galbeedka iyo meelaha qaar wadamada qaar xagaaga dabaysha kolkay zaa'idka u badan tahay ayuu baraf ka dhacaa. You drink waad cabtaa. You adigu drink waa cabtaa coffee qaxwo ama coffee waxa u taqaano in the morning subaxdii ayaa cabtaa everyday maalin walba qaxwo ayaa cabtaa. waa garanay. She ayadu she waa ruux dumar ama dhadig. Cooks way karisaa maalin walbay karisaa. Dinner waxay karisaa casho for her family. Habeen walba casho ayay karisaa waxayna u karisaa her family qoyskeeda. She waxaan dhahnay waa ayada. Cooks karin. Dinner casho for her family qoyskeeda ayaa casho habeen walba u karisaa. She writes way qortaa in her journal. Journal waxaa weeye tusaale ahaan YouTube channel, news channel, waxyaalahaas oo kale postiga ay samayso ama waxyaabaha ay baahiso camal. She ayadu writes way qortaa her journal journalkeeda every day maalin walba waxbay qortaa oy soo dhigtaa. He asagu he waa ruux raga. Paints his house beautifully. He paints his house beautifully. Gurigiisa ayuu rinjeeyay si qurux badan. Paints mar walbuu rinjeeyaa. Taas waxay ku tusinaysaa wax maalin walba dha. We travel waan safaray by bus ayaan ku safaray to work si aan u shaqo tagno maalin walba bas ka raacna. You swim waa dabaalataa in the river webigaad dabaalataa during the day. waa garan. I feed waan quudiyaa the birds shimbiraha in the park ee jooga meesha carwada. Park waa meesha xayawaanka lagu xanaaneeyo. He brushes wuu cadaydaa his teeth ilkihiisa before the breakfast. Quraacda intuu ka horeysa subaxii kolku soo kaco ayuu qureedaa. Birds waa shimbiro. Usually fly inta badan waa duulaan in the morning subaxdii and afternoon. Shimbiro inta badan subaxdii iyo galabtii ay duulaan. He plants wuu tallaalaa ama wuu abuuraa trees geedaha in the backyard. Backyard waxaa la dhahaa daaradda guriga of his house. Backyard of the house. The sun qoraxdu gives us wayna siisaa ama waa ka helaa light iftiin and warming iyo diirimaad every day maalin walba. He listens mar walbuu dhegaystaa. Listens taas waxay ku tusinaysaa wuxuu maalin walba dhegaysto. To Qur'aan ayuu dhegaystaa on his headphone. Bahalkan earphone-ka ama headphone-ka uu watay taleefanka lagu dhegaysto ayuu maalin walba Qur'aan ku dhegaystaa. She uses way isticmaashaa mar walba isticmaashaa computer at the workplace goobaha shaqada computer ay isticmaashaa. waa garanay. Computer she uses a computer at a workplace. waa garanay. He reads wuu akhriyaa the newspaper every day maalin walba wargeyska soo baxa ayuu akhriyaa. He watches wuu daawadaa his favorite waxyaabaha uu ka helay uu jecel yahay football every day maalin walba waxa uu ka helo kubadda cagta ayuu daawadaa. waa garanay. I like waxaan jeclahay to watch inaan daawado movies waxaan jeclahay inaan filimaanta daawado. I work waan shaqeeyaa mar walbaan shaqeeyaa at restaurant ayaan ka shaqeeyaa in the morning subaxdii ayaa waxaan ka shaqeeyaa restaurant oo ah maqaayad. I work
at a restaurant in the morning. subax walba maqaayad ayaan ka shaqeeyaa. He asagu lift wuu qaadaa ama lifts wuu qaadaa weight culays at the gym, meeshan lagu jimicsado ee biraha lagu qaado ama gymka la yidhaaho ayuu mar walba wuxuu qaadaa miisaan aad u culus. taas ayaa ku daynaynaa. ciddii ay ku adkaato nagula soo wadaagto commentiga insha allah. wixii ay fahmi weydo waa ku soo celinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.